muxaadarooyin kala duwan ka daawo TBN Tawfiiq Broadcasting Network. TBN wuxuu idin soo gudbinayaa culimo kala duwan, casharo kala duwan, muxaadarooyin kala duwan. Ka faa'iidayso meel walbo aad ku sugan tahay. TBN Tawfiiq Broadcasting Network. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. waxaan insha allah ku jirnaa suurat lbaqara. waxaan ka bilaabeynaa aayadda 75 ee suurat lbaqara ka mid ah. waxaan ilaahay nooga soo sheegayay subxaana watacala reer bani israa'iil iyo waxay soo sameeyeen iyo nabiyullaahi muuse waxay ku sameeyeen iyo madaxadeegooda iyo ilaahay waxa ay ku sameeyeen subxaana watacaala ayaana looga sheekay mid kale ka daran yahay. marka ilaahay waxaa lala hadlaa nebiga iyo mu'miniinta oo reer bani israa'iilka madiina jooga ee la degan maka oo nabiga yaqaano calayhi salaatu wassalaam ayaa lala hadla iyaga. allah wuxuu ku leeyahay markaas subxaana watacaala afatadmacuuna ma hunguriyeyneysaan an yu'minuu inay idin rumeeyaan lakum idinka waqad kaana iyadoo uu ahaa fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid ah yasmacuuna kuwa maqla kalaam allahi ilaahay hadalkiisa subxaana watacaala huma markaa kadib yuxarifuunahu badala ama dooriya min bacdi maa caqaluuhu markay kaseen kadib oo ay fahmeen wahum iyagoo yaclamuuna og waxa ay doorinayaan ilaahay hadalkiisa inuu yahay subxaana watacaala. waidaa laquu ladiina kuwii hadday la kulmaan aamanuu ilaahay rasuulkiisa rumeeyey mu'miniinta ah qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waa rumaynay. waa kuwa munaafiqiinta yahuudda ah. waidaa khalaa bacduhum qaarkood hadduu la keli noqdo ilaa bacdin qaarka kale oo isla keliyoobaan qaaluu waxay leeyihiin atuxadithuunahum ma waxaad u sheegaysaan mu'miniintan qoladan nabi maxamed rumaysan bimaa fataxa allahu ilaahay waxa uu xukmiyey calaykum dushiina. ilaahay ku xukmiyey reer bani israa'iil wixii uu ku xukmiyey soo mareen oo doofaarkii iyo loo bedelay iyo nabiga ku yiri calayhi salaatu wasalaam ya abnaa alqaridati walkhanaasiir dadkii doofaarka iyo daanyarada loo bedelayo. marka ma wixii lidiin bedelo idinku xukmiyey fatxiga bimacna alxukmi loo jeedaa. bimaa fataxa allahu ilaahay wuxuu xukmiyey calaykum dushiina miyaad u sheegaysaan liyuxaajuukum si ay idinkaga xujo helaan bihi isaga cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluuna midaan caqli lahayn. ama bimaa fataxa allahu ilaahay waxa uu furay calaykum idinka dushiina aqoonta idinka aada leedihiin iyo cilmiga aada leedihiin oo ilaahay idin siiyey miyaad u sheegaysaan liyuxaajuukum bihi inay idinkaga xujo helaan darteed cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluuna midaan caqli lahayn. awalaa yaclamuuna miyaysan ogeyn an allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaan. afatadmacuuna ma hunguriyeyneysaan. istifhaamka waxaa la yihahdaa waa lala yaaban yahay nabiga iyo saxaabada kaana idil sideeba u hunguriyeyneysaan dad sidaas ah see rajo uga qabtaan inay idin rumeeyaan adinka waxa aada sheegaysaan oo nabiga ay rumeeyaan oo ay soo raacaan see u hunguriyeyneysaan see rajo uga qabtaan. afatadmacuuna ma damcaysaan ma hunguriyeyneysaan an yu'minuu lakum inay idin rumeeyaan qoladaas reer bani israa'iila
waqad xaal kaana uu ahaa fariiqun qolo oo minhum iyaga ka mid ah yasmacuuna kuwa maqla kalaam allahi ilaahay hadalkiisa huma haddana yuxarifuunahu badala ee dooriya ilaahay kalaamkiisii min bacdi maa caqaluuhu markay kaseen kadib markay fahmeen ilaahay kalaamkiisa ma aha iyagoo ogeyn inay bedelayaan laakiin way og yihiin way fahmeen hadalkii ilaahay sida uu ahaa ayay u fahmeen oo cilmi ay u leeyihiin markaas waxay bedelayaan ilahay hadalkiisii subxaana watacaala iyagoo cilmi leh oo og subxaana allah wahum iyagoo yaclamuuna og min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib wahum yaclamuuna iyagoo og ayay hadalkii ilaahay intay bedelaan hadal kale booskiisa ku qoraya yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi ninka ku dhiiraday hadalkii ilaahay inuu bedelo oo ilaahay wuxuu yiri subxaana watacaala sidaas saa ayuu ilaahay yiri haddana ilaahay ma dhihina saas ma dhihina saa iyo saa ayuu yiri meeshii ku qora ee yidhaahda ilaahay saas iyo saas uu yiri ama xukunka ilaahay uu xukmiyey bedela yidhaaho maaragtay in laga dhaafo dadka madaxda oo kale xuduudda laga dhaafo way taxriifiyeen marka ilaahay subxana wataala taasuu noo sheegaya marka ninka heerkaa gaaray oo ku dhiiraday ilaahay kalaamkiisuu og yahay inuu bedelo adiga see rajo uga qabtaa inuu ku rumeeyo waidaa laquu hadday la kulmaan aladiina aamanuu kuwa ilaahay rumeeyey qaaluu waxay leeyihiin aamanaa waan rumeynay kuwa waa kuwa munaafiqiinta ah kuwa waxaa jira yahuudda oo munaafiqiin waa soo islaamna yidhaahda oo la jooga dadka muslimiinta ah oo ku dhex jira kuwaasa marka waxay ka sheekeyn jireen reer bani israa'iil wixii ay soo mareen iyo axkaamtii inay wax ka bedeleen kutubtii sii ahaan jirtay inay wax ka bedeleen xog badanay u sheegi jireen oo ku saabsan markaas waxay dhihi jireen ma wixii ilaahay idin baray aad u sheegaysaan iyagii si ay idinkaga xujo helaan ama waxay u sheegi jireen wixii lagu xukmiyey abayaashood oo xukun ah markaasay dhihi jireen ma waxaad u sheegaysaan wixina lagu xukmiyey annaga ayaad u sheegaysaan qaar waxay leeyihiin aamanaa waan rumayna waidaa khalaa bacduhum qaarkood hadday isla keli noqdaan ilaa bacdin qaarka kale qaaluu waxay leeyihiin atuxadithuunahum ma u sheegeysaan mu'miniinta kuwa nebiga raacsan bimaa kii fataxa allahu ilaahay uu furay calaykum idinka dushiina oo ilaahay idin baray waayo ama ilaahay idinku xukmiyey liyuxaajuukum say idinkaga xujo helaan bihi isaga cinda rabbikum rabbigiin agtiisa oo idinkaga xujo helaan afalaa tacqilu midaan caqli lahayn ilaahay markaa wuxuu le awalaa yaclamuuna miyaysan ogeyn ana allaha ilaahay yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan wamaa yuclinuuna waxay muujisanayaan waxay banaanka soo dhiganayaan iyo waxay qarsanayaan labadaba ilaahay inuu og yahay subxaanahu watacaala yacni sooma oga sittiinhaa sawjira dhagaytiiteenaaken kan daawatu jirtu kuntii bn qolada cilmiga leh waayo yacni qolada aqoonta leh saasay samayn jireen waxay bedeli jireen kitaabka ilaahay iyagoo og inuu kitaabka ilaahay u yahay qolo kalaa jirta iyagana oo caamo ah iyaga yahuudda ka mid ah wa minhum waxaa ka mid a ummiyuuna kuwo magudbayaal ah ummiga waa midka aanan isaga sidai hooyadii u dhashay ah ummi yani waxaa loo nisbeynayaa hooyadiis ayaa loo nisbeynaya wa minhum siduu nabiga yihi calayh isalaatu wasalaam inaa ummatun ummiya laa naktubu walaa naxsib annaga waxaana ummad aan waxba qorin waxnana akhrin waxna xisaabin ayaan nahay xadiisku ibnu cumar aa wariyey saxiix bukhaari uu ku yaala fi kitaab asiyaam oo muslimna waa wariyey inaa ummatun ummiyatu laa naktubu walaa naxsib saasaa ilaah yiri wa minhum waxaa ka mida ummiyuuna kuwa ummiyiin ah kuwa waxna akhrin waxna qorin laa yaclamuuna aan cilmi u lahayn alkitaaba kitaabkii ilaa amaaniya amaani ma ahe yacni waxaa loo jeedaa amaanidaas wax un ay kitaabkaas leeyihiin waa kitaabkii ilaahay soo dejiyey oo muuse lagu soo dejiyey oo waxa ay iska tamaninayaan
waxay iska tamanina amaani wasaas lahahdaa waxay iyada diila ma ahe ilaa amaaniya amaani ma ahe wax kale aanan yani ka garanayn kitaabkii. amaaniya waxaa kaloo la yidhi akrin ma ahe kitaabki way akrinayaan laakiin macnihiisii waxa uu yahay midna kama garanayaan ilaa amaaniya. wa inhum mahum iyaga ma aha ilaa yadunuuna kuwa malaynaya ma ahe kitaabka waxa ku qoran waa male ilaa qofka caamada ah ilaahay kitaabkiisa wax ku qoran u malaynaa saasaa la yiri saasaan dadka maqalnay culamada saasay sheegi jirtay laakiin wax asaga u yaqaano dul istaago u garanayo ama u fahamsan yahay asaga ma aha. faweylun waxaa halaag iska liladiina kuwa yaktubuuna qoraya alkitaaba kitaabkii towraad ahaa biaydihim gacantooda ku qorayo uma yaquuluuna dhahaya hada midkan aan qornay min cindi illaahi ilaahay agtiisa ayuu ka ahaaday liyashtaruu si ay ugu iibsadaan bihi isaga thamanan qiime qaliilan oo yar. faweylun lahum waxaa u sugnaaday halaag mima kii xaggiisa katabad ay qortay aydiihim gacmahooda. wa weylun halaag ayaa u sugnaaday lahum iyaga mima kii xaggiisu kaga soo yagsibuna ay kasbanayaan xoolaha ay ku qaadanayaan bedelidiisa. kuwa cilmiga leh way bedeli jireen madaxday u bedeli jireen darteed ilaa diintii haddii sideeda loo raaco ninkii madaxda wuxuu rabaa in laga leexiyo diintii aayadihii in laga leexiyo oo wax kale meesha marka waxay dhihi jireen bedela meeshaan oo sidaa ka dhigan markaasay bedeli jireen xuduudii ay bedeleen waxay bedeleen waxyaalo badan madaxdiina waxay siin jirtay lacagaa la siin jiray ku qaadan jireen fara badan. ilaahay markaa wuxuu leey caza wajal faweylun waxaa halaag iska liladiina kuwa yaktubuuna qoraya alkitaaba kitaabkii towraad aha qoraya biaydihim gacantooda ku qorayay oo iyagu wixii ay ku doorinayeen gacantooda ay ku qorayeen. uma markaa kadib yaquuluuna waxay leeyihiin hada midkan min cindi illaahi kii ay qoreen waa iyaga ay sameeyeen hada midkan min cindi illaahi ilaahay agtiisuu ka ahaaday maxay u qorayaan sababta liyashtaruu inay ku iibsadaan bihi kitaabkii ilaahay thamanan qiimo qaliilan oo yar inay ku gataan. ilaahay kalaamkiisa waa kalaam dhexalgal oo weyn oo ilahay hadalkiisiya waxay siisanayaan xoolay siisanayaan xoogaa yar la siinayo wax kasta oo kitaabka ilaahay lagu siiyo bedelkiisa waa thaman yar waay macno weyn ma laha liyashtaruu bihi thamanan qaliila. faweylun waxaa faweylun halaag ayaa lahum iyaga u sugnaaday halaag ayay leeyihiin mima katabad wixii ay qortay aydiihim gacmahooda ayaa halaagu kaga imaanaya oo ah bedelidii ay bedeleen ilaahay hadalkiisii subxaanahu watacaala oo iyaga hadalkooda meeshiisi intay ku qoreen yidhaahdeen waa hadalkii ila hada min cindi illaah hadalkan iyaga ay qoreen waxay dhaheen ilaahay xaggiisa u ka ahaaday kaas ay qoreen ayaa halaag kaga sugnaaday. wa weylun halaagna waa u sugnaaday lahum iyaga mima kii xaggiisu kaga sugnaaday yagsibuuna ay kasbanayaan tacabka iyo xoogaaga ay ka qaateen oo maalka ay ku heleen kaasna halaag ayay ku leeyihiin. wa qaaluu waxay dhaheen yahuuda ama reer bani israiil waxay dhaheen lan tamasana na taaban mayso annaaru naarna taaban mayso ilaa ayaaman maalmo ma ahee macduudatan la tiriyey. qul waxaad tirahdaa nabi allow atakhadtum ma waxaad yeelateen cinda allahi ilaahay agtiisa cahdan ballan oo falan yukhlifa allahu ilaahay ma baajinayo cahdahu ballankiisa ama mase taquuluuna ma waxaad leedihin cala allahi alla dushiisa mana taclamuuna waxaydan cilmi u lahayn baad ilaahay ka sheegeysaan yaad ilaahay ka sheegeysaan subxaana wa tacaala balaa iska daa waxaase waa lidin cadaabaya inaan lidin cadaabin iska daa waa lidin cadaabaya. man kasaba qofkii kasbada sayi-atan xumaan waa axaadad ay koobto bihi qofka khadiicatuhu xumaantiisii ay hareereyso fa ulaaika kuwa asxaabu nnaari waa naar asxaabteeda hum ayaga fiiha naarta ayay khaaliduuna ku waaraya. waladiina duulka aamanuu ilaahay rasuulkiisa rumeeyey wacamiluu saalixaat camal suubarna sameeyey ulaaika asxaabu ljanna kuwa waa jannada dadkeeda hum ayaga fiiha jannadii khaaliduuna ku waarayaan ilahay anaga dhiga jannadii. marka jannada waxa lagu kasbanayo iyo naarta waxa lagu galayo ma ah sheegasho waa camalka iimaanka iyo camalka saalixa ah. waxay yidhaahdeen na taaban mayso naar waxayna taabanaysaa maalmihii aan caabudnay dibiga maalmihii dibiga aan caabudnay oo muuse naga maqnaa
maalmahaas keliya naarta aan taaban kadib waana laga saaraya. nimanka waxay dhihi jireen naxnu shacbullahi almukhtaar, waxaan nahay anaga shacabkii ilaahay uu doortay, naxnu yani ilaahay caruurtiisii aan nahay subxaana wa tacaala, yani ilaahay caruurtiisii aan nahay dhihi jireen. waqaalat alyahuud naxnu abnaa ullahi wa axibaahu, ilaahay caruurtiisii aan ayuu kuwa jeclaa, saasay dhihi jireen. waxba naartana taaban mayso ilaa maalmo tirsan ma ahay. marka taasaa ilaahay ka jawaaba subxaana wa tacaala. qaalo waxay dhaheen lan tamasanana taaban mayso annaaru naarta ilaa ayaaman maalmo ma ahe macduudatan tirsan, maalmo tirsan ayaa keliya nala cadaabaya, saasay yirahdeen. ilaa ayaaman macduuda, maalmo tirsan ma ahe. markaa ilaahay marka wuxuu lehy subxaana wa tacaala, ayib hadday saas ay tahay oo hadalkaas ma wax ilaahay uu idiin ballan qaaday oo cahdi ahaa, ilahayna cahdigiisa ma baajiyo, ilahay cahdigiisa ma baajiyo. ma cahdiyaa jira lidiin gooyey oo ilaahay agtiisa ka yimid subxaana wa tacaala, mase waxaydan aqoon u lahay inaad ilaahay ku sheegeysaan caza wajal. qaalo waxay dhaheen lan tamasana taabanmaysa annaaru naarna taabanmaysa ilaa ayaaman maalmo macduudatan tirsan maahay. qul waxaad tiraha nabi alla waxaa ugu jawaabtaa, attakhadtuma waxaad yeelateen cinda allahi ilaahay agtiisa cahdan ballan, falan yukhlifa allahu ilaahay ma baajinayo cahdahu ballankiisa. ama mase taquuluuna ma waxaad ku leedihiin cala llahi ilaahay dushiisa maa laa taclamuuna, waxdan cilmi u lahayn maad ilaahay ka sheegeysaan oad ku sheegeysaan. saas ma aha arrinka. balaa waa idin taabanaysaa naar, waa idin cadaabaya. man kasaba qofkii kasbada sayi'atan xumaan, qofkii xumaan kasbada gaalnimo la yimaada, ama xumaanka ay ugu weyntahay gaalnimada xumaanka la yimaado, waa xaadad ay koobta bihi qofka khati'atuhu dembiyaashiisa ay hareereeyaan. dembi uu sameeyey, kanuu galay, waxaa lagu wadaa yani dembi fara badan uu sameeyey qofkii, waxaa hareereeyey sida cadowga qofka u hareereeyay. in qofka la qabanayo oo cadow qabtay, si geesaha looga maro loo qabto, saasoo kalea dunuubtiisiiya qabatay oo hareereysay. waa xaadad bihi khati'atu, dembiyaashiisu ay hareereeyaan oo ay qabtaan. ilahay dembigaan u dhaafa subxaana wa tacaala. dembigaad markuu bato waa ku hareereynaya, meel oga baxda ma laha. beenaa sheegtay, balaaye waxbaad dishay, waxbaad khiyaantay, yani intaasoo dembi ah geesaha ka fadhiyo. marka waxa ku hareerayay dembiyaasha ku hareerayay. waa xaadad bihi ay hareereeyaan, ay hareereysa bihi isaga khati'atuhu dembiyaalkiisi. fa ulaaika kuwa asxaabu naari waa naar asxaabteeda, naar ayay saaxiib leeyihiin. dadka waa naarta gala, hum ayaga fiiha naartaasi khaaliduuna ku waaraya. manta waxaa la yidhaha waa cumuum, min alfaad alcumuum ay ka mid tahay. qofku doona ha noqdo, ha madoobaad, ha cadaado, ha dheeraado, ama halqabin ha noqdo, faqri ha noqdo, qofku doona ha noqdo. man kasaba sayi'aat, marka waa caam. waladiina duulka aamanuu ilaahay rasuulkiisa rumeeyey, wa camiluu saalixaati camal wanaagsanna sameeyey, ulaaika kuwa asxaabu ljanna waa jannada dadkeeda, hum ayaga fiiha jannada ay khaaliduuna ku waaraya. iyadana waa iimaan walcamal saalix, aliimaan walcamal saalix. iimaan saxa la rumayn saxa ah oo si saxa iimaankaad u rumaysan tahay ilaahay, iyo camal suuban, isagana waa qofka janno ku waaraa weligiis. asxaabuuljanna iyo camalkayna ku xiran tahay. warka waa intaasuu ku dheeyahay, maaha anaga shacab ilaahay aan nahay iyo naxnu abnaa ullahi wa axibaahu iyo yani shacab mukhtaar la yihahdaa iyo lan tamasana naar ilaa macduuda, waxaasoo dhan. dadka qaar waxaa jira hadalka aayadda waxaa laga qaadan rabaa inaan baraarujiyo. dadka qaar waxaa jira okay, ani haddaan muslim ahay maalmo unbaa cadaabka liigu hanta kadib jannada ligeynaya. dadka qaar saas yiraahdo waxay la mid tahay hadalka yuhuudda oo kale, lan tamasana naar ilaa ayaama macduuda. marka ilahi subxana wa tacaala, waid akhadnaa, wadkur xasuusa id goor akhadnaa aan qaadnay mithaaqa bani israa'iila, reer bani israa'iil ballankoodii adkaa aan ka qaadnay. muxuu ahaa ballanka? laa tacbuduuna inaydan caabudeynin
ila allaha ilaahay ma ahay cid kale idan caabudaynin. wabilwaalidayni wa an tuxsinuu inaad u ixsaan fashaan bilwaalidayni labada waalidna aan balan adag uga qaadnay ixsaanan samafalid. wadilqurbaa wa an tuxsinuu dilqurbaa qaraabada kan u saaxiibka ahna inaad u samafashaan. walyataama agoonta iyo walmasaakiina masaakiinta ayaan balan adag uga qaadnay. waquuluu ayaan balan uga qaadnay u dhaha linnaasi dadka xusnan hadal wanaagsan. hadal wanaagsan dadka ku dhaha, afkiina carabkiina hagaajiya. Akan gabbaraman Allah malinjiru Khawan ume hunda firesani hiru Hojinti yayamu ilmana ma hunda Gabbarti birarra khara rabbi gudda Jirun ad-dunya tumbarta sobati تخيست وارا تن آخراتي والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بي والري ولكبة دوا خيسا قلا خسيف مجر كنتي بي waaqiimuu oga asalaata salaada ogan kula ahaan balan adag uga qaadnay. wa aatuu la imaada azakaata zakadii huma markaa kadib intaa markaa ballan adag aan ku wada galnay oo ballan adag iga qaadeen huma markaa kadib tawallaytum waa jeesateen ilaa qaliilan in yar oo minkum idinka idin ka mid ma ahay intii ni kale waa ka jeesateen ballankii. wa antum idinkoo mucriduuna jeestay oo wax allaala wixii lagu heshiiyey dhabarka u jeediyey. waa arrin adag. miithaaq waxaa la yidhaahdaa waa ballanka dhaarta lagu xoojiyey. wadkuruu xusuusta id goor akhadna aan qaadin miithaaqa bani israa'iila reer bani israa'iil ballankoodii adkaa laa tacbuduuna inaydan caabudeen ila allaha ilaahay ma ahay waa cibaadatullaahi waxda. wa bilwaalideyn labadii waalidna ixsaanan samafal aan idinkaga ballan qaadnay inaad u ixsaan falaysaan labadii waalid. wadilqurbaa qaraabada kii u saaxiibka ahayna inaad ballan adag ayaan idinkaga qaadnay inaad qaraabadiina u ixsaan falaysaan. walyataama agoontii walmasaakiin masaakiintii intaasaan ballan idinkaga qaadnay u samafalkooda. waquuluu dhaha ayaan ballan adag idinkaga qaadnay linnaasi dadka xusnan wax wanaagsan. hadal wanaagsan ku dhaha dadka, hadal wanaagsan ku dhaha qofka ha kaa soo fula hadal wanaagsan. waaqiimuu oga asalaata salaada oga aynu kula ballanay. wa aatu zakaata zakadii la imaada huma markaa kadib intaa waa wax wada wanaagsan kulligood ilaahay keligii la caabudo subxaana wa tacaala. waalidkaa lagu xijiyey xaqii ilaahay in waalidka loo samafalo, qaraabada, agoonta, masaakiinta iyo dadka cumuuman inaad hadal wanaagsan ku dhahdaan. waquulu linnaasi xusnan. hadda dadka linaaska dadka waxa la gaal iyo muslimba ilaa annaas waxaa marka qur-aan ku leeyahay dadka waxaa loo jeedaa gaal iyo muslimba. gaal iyo muslimba hadal fiican ku dheh. waquulu linnaasi xusnan. mid walba waa mid gaar u qiimo badan. salaada ooga, zakadii la imaada. markaa kadib tawallaytum waa jeesateen, waa ka jeesateen wixii ballanka adag idinkugu galay waa ka jeesateen. ilaa qaliila minkum in yaroo idinka idin ka mida ma ahay. wa antum idinkoo mucriduuna jeestay. wadkuruu xasuusta id goor akhadna aan qaadin miithaaqakum ballankiinii adkaa laa tasfikuuna inaydan daadinaynin dimaa'akum dhiigagiina walaa tukhrijuuna idan saaraynin anfusakum nafsadiina min diyaarikum guryihiina inaad iska bixinayn. tadaaharuuna idinkoo isu kaashanaya calayhim dushooda kuwa aada bixinaysaan bilithmi dembi isugu kaashanayo iyo walcudwaani coleytan. wain yaatuukum hadday idin yimaadaan usaara iyagoo lasoo qabtay oo qafaal ah tufaaduuhum waad furanaysaan. wa huwa iyadoo muxaramun ay xaraan idinka tahay calaykum dushiina ikhraajuhum saaridooda hore inaad saartaan. afa tu'minuuna ma rumaynaysaan bibacdi alkitaabi kitaabkii qaarkii wa takfuruuna ma ku kufrinaysaan bibacdin qaarka kale. famaa jazaau man qof jazihiisa muxuu yahay yafcalu dalika kaa samaynayo oo minkum idinka idinka mid a
ilaa khizyun dulli ma ahe fi lxayaati dunya adduunka hoose adduunkan noloshiisa lagu duleeyo iyo wayowma alqiyaamati maalinta qiyaama lagu duleeyo wayowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yuraduuna waxaa loo celinaya ilaa ashaddi alcadaabi cadaabka kiisa sii daran wama allahu ilaahna ma aha bigaafil mid ilowsan camaa tacmaluna waxaad samaynaysaan ulaaika kuwa aladiina waa kuwa ishtaruu iibsaday alxayaata dunya dunyadan hooseysa soo gatay bilaakhirati aakhara ku iibsaday falaa yukhafafu lagu fududayn macnuhu iyaga xaggooda alcadaabu cadaabkii walaa hum man aha yunsarun kuwa loo gargaarayo aayaddan waxaa ilaahay u sheegay subxaana watacaala reer bani israil waxaa laga reebay dhiigooda inay isdaadiyaan iyaga ilaa waxay dad muslimiinay ahaayeen guryaha inay iska qixiyaan oo iska saaraan waa laga xaaraantinimay marka waxaa laga xarimay waxaa dhacday marka waxay u qeybsanayeen carabtii ay waxay la kala lahayn ay la kala safteen iyagoo carabtan mushrikiin ay taho asnaam ay caabudaysa iyagana kitaab ay haystaan ayay marka waxay la kala safteen carabtii isbahaysiyay sameeyeen taxaaluf qolana khasraji taxaaluf la ahayd qolana awsi taxaaluf la ahayd maxaa dhacay awsi khasraj dagaalamaya labada saf ay soo galayeen qolaa la jebinaya qolada la jebiyo guryihiia laga qaadanaya waa dhiigooda la daadanaya waa la bilaqaysanaya ayib iyagu waxay ku jiraan kuwa yahuudda ahlu kitaabka ahyo iyaga la diinta ahyo qolada kale ku jiray waa la dhacaya waa lugta la marinaya waa la dilaya wixii dhintay marka saa la yeelo qaara laga soo qabanaya qafaal ah marka qaarka laga soo qabtoo la keeno ay waxay leeyihiin war kuwaan isku diinaan nahay waa dadka ahlu kitaabka diinteenna haystay aan furano lacagay ka bixinayaan waa soo deynayaan diinta amraysa soo deyntoodii diintooda kitaabkoodii amraya maadaama ay isku diin yihiin marka ilaahay wuxuu leey subxaana watacaala dhiiggiina waa daadinaysaan waana guryihiiad ka saaraysaan waa wada xalaashateen haddana markii oo xaaraan ah haddana marka lasoo yani lasoo qabto waa furanaysaan oo lacagaad ka bixinaysaan marka kitaabkii qeybna ma ku camal falaysaan oo qeybta furashada ah qeybna ma beeninaysaan oo ah dhiiggii inaad daadaysaan dhiig daadintii iyo bilqaysigii iyo in guryihii maaragtay guryaha laga saaro dadkii isku diinta ahayda taasaa ilah leh subxana watacaala wadkuruu xasuusa id goor akhadna aan qaadin miithaaqakum ballankiina adka laa tasfikuuna inaydan daadinin dimaa'akum dhiigyadiina walaa tukhrijuuna idan saaraynin anfusakum nafsadiina min diyaarikum guryaha aad iska bixinaynin oo guryaha iska saartuba markaa kadib aqrartum waad ogolaateen arinka ballankaa adag wa antum idinkoo tashhaduuna xaadir ah oo caqligiina maskaxdiina ay joogto uma markaa kadib antum idinka haaulaai kuwiikinaan taqtuluuna waxaad dilaysaan anfusakum nafsadiini way isdilaysaan idinkaa dilaya kuwii kale wa tukhrijuuna waxaad ka saaraysaan fariiqan qolo oo minkum idinka idin ka mid a min diyaarihim guryahoodii tadaaharuuna idinkoo iskaashanaya calayhim dushooda bilithmi dembi iyo walcudwaani coleytan isku kaashanayo wain yaatuukum haddii idin yimaadaan usaara iyagoo lasoo qabtay oo qafaal ah haddii laydiin keenana tufaaduuhum waad furanaysaan qiraa'o kale waxay leedahay tafduuhum waad furanaysaan tufaaduuhum wahuwa isagoo muxaramun ay xaaraam tahay calaykum idinka dusheena ikhraajuhum bixintoodii hore guryahooda aad ka saartaan iyo inaad dishaan afatuuminu ma rumaynaysaan bibacdi kitaabkii qaarkiis watakfuruuna maku kufrinaysaan bibacdin qaarka kale famaa jazaau man qof jazihiisa muxuu yahay yafcalu samayna dalika midka oo minkum idinka idin ka mid a ilaa khizyun hoog ma ahe fi lxayaati dunya adduunyada ilaahay ku duleeyo wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana yuraduuna waxaa loo celinaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaabka kiisa daran wama allahu ilaahna maaha bigaafil mid ilowsan camaa tacmaluna waxaad samaynaysaan ulaaika kuwa aladiina waa kuwa ishtarow iibsaday alxayaata addunya noloshaan adduunka u hooseysay soo gateen maxay ku gateen bilaakhira aakharo falaa yukhafafu canhum laga fududayn maayo alcadaabu cadaabkii walaahu mana aha yunsaruuna kuwa loo gargaaro wallahu subxaanahu watacaala aclam.